Suuragal ma tahay inaad u safarto magaalo aadan garanayn magaceeda, dhanka ay ka jirto iyo weliba masaafada ay kuu jirto, adigoo ruux kale aan isku halaynayn? Dabcan jawaabta waa iska caddahay. Suuragalna ma noqon karto inaad aado meel aad rabto adigoo aanan ka helin xog ku saabsan sida magaceeda oo kale, safar kooban oo saacado ama daqiiqado uun qaadanayo haddii uusan suuragal ahayn qorshe la'aan. Maxaa u malaynaysaa safarka nolosha oo idil? Nolosha waa safar u baahan qorshayn iyo in loo sameeyo yool ay hiigsato oo ay ku dadaasho xaqiijintiisa iyadoo raacayso qorshe ay u degsatay. Dadka nolosha ku guulaysta waa dadka leh yool ay hiigsadaan islamarkaana u dejiya qorshe oo ah jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen hiigsigooda. Waxaa jiro sidoo kale qof walbo in uu xambaarsan yahay hadaf iyo yool kale oo uu hiigsanayo islamarkaana ka damacsan yahay noloshiisa inta uu adduunkan dul joogo, balse dadka badigood hamigooda waxa ay ku keedsadaan uurkooda iyagoo aanan samaynayn wax isku day ah. Markii uu ruuxa sidaa noqdana hamigiisii oo idil wuxuu isu beddelaa hawo iyo khiyaali aan soo dhaafin uurkiisa. Isweydii, maxaa ka damacsan tahay noloshaada dhow iyo tan fog? Waa qasab. Qofka bini'aadamka ah mar walba wax buu hiigsanayaa islamarkaana jecel yahay in uu gaaro, balse waxaa kala duwan sida ay u qaabilaan ka gungaarida waxyaabaha ay hiigsanayaan. Dadka badankood ma lahan qorshe ay u dejiyeen ka midha dhalinta yoolka noloshooda. Waxay ay nolosha u qaabilaan habkii ay iyada u soo qaabisho, halkii ay nafta xukumi lahaayeena ayaga ayay hoggaanka u haysaa. Taana waxa ay sababta in inta badan in ay qiimo beesho nolosha qofka. Haddaba maxaa u diida dadka badigood qorshe u dejinta hadafka noloshooda? Waxyaalaha ka hortaagan dadka badankood in ay qorsheeyaan noloshooda waa ay fara badan yihiin, hase yeeshee waxaan ka xusi karaa qodobadan. Cabsi ay ka qabaan guul daro iyo fashil ku yimaada qorshaha ay degsadaan. Liiditaan nafsadooda ay liidayaan iyagoo isu arko in aysan qorshe fulin karin. Faham daro muhiimadda ay leedahay qorshe u dejinta hadafka nolosho. Xishood iyo cabsi ay ka qabaan in ay bulshada la yaabto. Akhriste waa muhiim in uu kuu cad yahay hadafka aad nolosha ka leedahay. Isweydii, maxaad u nooshahay? Waa maxay hadafka fog ee aad noloshaada ka damacsan tahay? Mar haddii aad jawaab u hesho su'aalahaas, waxaa kuu sahlanaan doonta qorshe u dejinta xaqiijinta hadafka noloshaada. Ugu dambayntii, waxaan kugula dardaarmayaa nafsadaada inaad hagto oo aad qorshe u dejiso, waayo haddii aadan hagin, iyadaa hoggaanka kuu qaban doonto. Nafsada haddii ay hoggaanka kuu qabato oo ay hawadeeda iska raacdana waxaad halis u tahay halaag iyo khasaaro. Allaha inaga najeeye. Dareenka nolosha si aadan uga dhicin, hag nafsadaada oo u yeel hadaf iyo yool ay hiigsato.